السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بقى مهد ربي سبحانه وتعالى وحي وقاضي وأدونك وحي وكان يعدنا كلمات الشر شلك دعي وحان وتعسيريننا لما غير قردفو شعبك عن مسؤولية دوسدنو وهو تعسيريننا شلك أنك كل أنت وصاحبك يهانا وحان لنا ربي سبحانه وتعالى هولنا حريستو annagana waxaan leenahay rabbigay wixna soo gaaray dambi dhaaf nooga dhigo inta kadib waxaan hakad galay shilkaas awgiis xawaarihii ama systemkii aan ku soconay oo aan jeclayn inaanu hadda ka hor deegaanadii Gardafu aan gaaro ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa asbuucyada soo socda inaan gaaro waxaan noo suurto gashay ilaahay mahadis maantay inaan ku guuleysano inaanu iibino gaari 3L ah oo nooca xaajiga qooqanaha laba shirleyda ah kaasoo gobolka Gardafu uu iska leeyahay aan ahayn mid uu leeyahay gudoomiyaha Gardafu ahna wax qabadkii noogu horeeyay taasna ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa shacabka reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa inay sidaas la mid ah nin waliba halka uu joogo hawshiisa ka qabsado inaanu isgarabsano oo aanan isgarbinna waa ugu baaqaynaa ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu nabad kaayo isugu geeyo waan tashan doonaa wax badanna waanu insha Allah ilaahay idankiis waa qaban doonaa sida u jeedaan gaarigan waa gaarigii shilka nala galay aniga gacantayda ku waday anigaana iska lahaa personal gaarigan waxaan ka soo safaray jimcadii hore 8 dame aroortii salaadii subax ka hor caasimadda Puntland Garowe ilaahay mahadii salaadii subax waxaan ku tukanay toorada iyo xaaji khayr markaan soo dhaafnay adiga abaarihii 6dii 12 rubi dhiman ayaa shilku wuxuu nagu hereeray meesha la yiraahdo kantaroolka qardho iyadoo aan u dhownahay gaariga nagoo soconaa xawaalaan ku soconaa wuxuu ahaa 80 waxaa loo qarxay qaayid dambe kabacdina wuxuu nagala booday buundo dhinaca waxaan u dhacnay gaarigu uu nagala booday dhinaca dareewalka ah marka hore waxaan dhiganay saa u jeedaan afka hore marlabaadkina gaarigu wuxuu dhigtay tayfarka hore saddexaadkina gaarigu wuxuu dhigtay dhinaca dhir badan oo damara quraca ayaa gaariga jiiray gaarigu wuxuu ahaa gaariga Leyla Calaawi nooca tirilaha oo adag aadna u xoog badan oo torkiisu cusub yahay gaariga aniga oo dareewal ahaa waxa yaani xawaarihiisa aan xasuustaa iyada oo sida u jeedaan gacantan yani karmaanka iyo feertu jabtay iyo nabaradana u jeedaan oo halkan ka muuqda iyadoo steerinka iyo dhir wax ugu dhacayaan isla markaa marmarka qaarkood aan ku fakiray naftu waa adag tahay goorma bixi doontaa adiga muddo kadib waxaan xasuustaa gaarigiiyo haddana dhinaca kale isu rogay iyadoo taraafikadii meesha jooga nin ka mid uu gaariga furaha ka jarayo